السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبات قيمها بدن كنت عن channel كعبينتا وركا روحانتي aad ayuu mahadsantiin saaxiibeel ee ku soo dhawaada channel كعبينتا وركا subscribe saar hadaad ku cusubtay channelka like na saar muuqaalka si sii gaar dad badan oo kamid ah asxaabteena waad ku mahadsantahay jaanqaadkaaga markasta saaxiib maanta taawadan waxaan ka hadli doonaa runtii arin aflaatay saac soo dhaafay dadku saas ku dhex wareegayeen runtii ay leeyihiin dadku xafsa ku kalmaninkeediiba mise waa wax kale oo runtii jacayl cusub ay soo bandhigtay hadaba taawadan maanta waxaan ka hadli doonaa xafsa ku oo soo bandhigtay jacaylkeeda cusub maxaa lagu magacaabaa xiriirkan xilmu ka bilaabay qisada jacaylkooda ayaa si toos ah nigu soo timin doona saaxiibeel ee muuqaal ayaan iga deeray ugu horreyn waxaan ka xusinayaa in muuqaalka si share gareeso la wadaagto asxaabtiina sidoo kale aad like saarto muuqaalka si sii gaar dad badan kale channelka subscribe keenin oo boqolkii oo subscribe wax yar ayaa ka dhiman hadaba muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa xafsa oo soo bandhigtay jacaylkeeda jacaylka xafsa wuxuu soo bilaabay kadib markii ay rashka boy kala tageen rashka boy qof kasta oo garanaya runtii waa wiil youtuber isla waayihii ugu dambeeyay ku nool caasimadda Nairobi magaalada Nairobi ee waddanka Kenya hadaba rashka boy oo sababna runtii ah youtuber iyo xafsa oo runtii youtuberada runtii halkaasna ay ka soo muuqan jireen barankiyada iyo muuqaalada xiisaha badan sidoo kale rashka boy iyo xafsa waxay halkaa ka soo madali jireen barankiyada iyo runtii muuqaalo runtii aad dadka uga qosliya hadaba kala tagoodii kadib markii ay u dhamaaday xiriirkoodii Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana halkaas ku kala kaxay hadaba rashka boy oo guursaday isagu isla waqtiyadii ugu dambeeyayba inaan laga asma oo runtii kamid ah hablaha magaalada Nairobi uga caansan ee xagga xaafadda Sli runtii taas oo ku haysata meherad aad u weyn oo runtii make-upka inantan oo make-upka ka shaqeysata ayaa rashka boy Ilaahay iskugu beegay oo runtii ka dhigay xaas hadaba sidoo kale xagee ku dabaysay xafsa kuwin runtii waa inan dayan isla waqti xaadirada ugu dambeeyayna wax u badan ma hayn rashka boy halkaasna ay ku kala tageen waxay xiriir cusub la yeelatay wiil TikTok ka caan oo isla Nairobi sidoo jooga oo Cabdiqaadir lagu magacaabo hadaba Cabdiqaadir iyo xafsa oo runtii muuqaalo aad dadka u dhiirigeliyay oo romantika soo duway muuqaaladan waxay ku salaysiin yaase la tusay wayasoo kala rashka boy iyo tiimkiisa ayaa la tusay sidoo kale xafsa oo runtii kadib markii YouTube-keeda soo weeraray oo hin afka qabsatay taasoo ku eedeysay in uu rashka boy ka dabay arrintan laakiin si darro dadka rashka boy ku eedeeyay ayaa runtii rashka boy ayaa eedeymahan iska dhaleecay runtii sheegay in aan YouTube-keeda waxba ka falan hadaba Soomaalida oo u gulmatay oo runtii maantan boqolkii oo subscribe laba week ku gaarsiisay hadaba Soomaalida ma la soo karaa waa dad runtii aad u wacan oo runtii sida wacan ay ugu gulmadeen inantaas xafsa taasoo isla laba week ba ay ku gaadhay boqolkii oo subscribe taasoo dabaaldegii YouTube-keeda la moodayay aroos iyo galbis dadka kalena ay meesha daawanay waxay moodayeen ba aroos kadib markii ay shaacisay in xafladii boqolkii oo subscribe ay ku gaadhay tahay laakiin arrinkaas oo runtii xafsa aad u dhiirigeliyay ayaa runtii xafsa ka soo muuqata muuqaalada iyo sidoo kale jeliinka riwaayadaha yar gaagaaban sidoo kale brankiga aad u taqaan runtii ku soo matasha barteeda YouTube-ka ay ku leedahay xafsa iyo arooskeeda oo dhici doona waayaha soo socda hadaba saaxiib bal waxaan leenahay niga tagi doona channelka waa channelkiina subscribe like comment iyo share wixii inta bay naga ku